Soomaalidu gariifto caadada guracane gabigeeda dunyada ay ka guurtay waa hore gabooyuhu gab weeyaan Soomaalidu gariifto caadada guracane gabigeed adduunyadu ay ka guurtay waa hore alla ilahe waa erayo guntan oo gunaad ka muuqdo fariin cadna diraya yaa salaam waa fanaanad jeclaatay wiil dhalinyaro ah oo ka soo jeeda goobta gabooye la dulmiyey kadibna aragtay in lagu gaasirayo oo gowska dambe lagu hayo iyada iyo calmashada doorteeda iyo ninka rag oo dhan ay kala soo dhex baxday bustahana ay dul dhigatayba waxaanay fanaanadani caddaynaysaa in gabooyuhu ay yihiin gobta Soomaali oo idil marka la isku qaado ugu gobsan oo ugu wanaagsan oo ay leeyihiin xeer beegti cuqaal garaadkoodu sarreeyo oo garta adagooya yaa salaam balse lagula dhaqmo caado dhaqameed waa hore iyo cusurnimo hore oo ka soo dhammaatay adduunyada inteeda kale ee casriga u gudubtayba fanaanadan jeclaatay wiilka gabooye ah ee gayaankeeda oo caddaynaysa in ragga adduunka joogoo dhan ay kala soo dhex baxday geesi gayaankeeda welibana fanaanadani way garnaqsanaysaa waxaanay leedahay haddaan jeclaaday wiil muslina oo ila midaba oo aanu wadaagno dhaqan iyo af iyo adin miyaan ka baxay diintii maxaa laygu gaasirayaa bal hal daqiiqo aynu soo milicsanno heestan ay ula gaclootay xaajigeeda adduunka ay kala soo dhex baxday iyo weliba beelaha gabooyana ay ku difaacayso fanaanadan codka tolmoon leh Siban jeclahadoon ka xusheegayaankay siban jeclahadoon ka xusheegayaankay gacaliyo xigtaahne miyan diinta garab maray geesi baan jeclaadoo ka xusheegayaankay gacal iyo xigtanahe miyaan diinta garab maray allaylehe waa xaqiiq weyn waana su'aal u baahan in laga jawaabo haddii gabadhu ay jeclaatay wiil Soomaali ah oo muslima dhaqan iyo af ay wadaagaan ma diinta ayay ka baxday waa su'aal mug weyn oo miisaankeedu sarreeyo una baahanna jawaab waafiya Soomaalidu waa jaantaar rogan dan aad ku tirisaba garan maysid ma muslim baa ma kristan baa markaad aragto cusurinimada ay ku dhaqmayaan waxa la yaab mudan wiilka gabooye ee ka ab la garanaya meeshuu ka soo jeedo waad u diidaysaa gabadhaada inuu guursado haddana gabadhaadi waxaad siinaysaa nin caddaana oo balagtu buur leeg tahay oo ajnabiya sara joogga ku kaaja saxarada iyo kaadida aan iska maydhin haddaba aynu ku bilowne tan waa gabar Soomaaliyeed oo qoys sharaf leh ka soo jeeda waxay jeclaatay nin Maraykana oo ay inoo keentay waxaana arooskoodu ka dhacay Garowe cid hadal haysa weligeed lama arag sodohda iyo sodoguba waa ay ka qayb galeen arooskeeda waanay ka soo dhaanteeyeen tanina waa gabar kaloo Soomaaliyeed waxaanay ka soo jeedaa gobolka Togdheer waxay ku nooshahay waddanka Norway waxay inoo keentay nin caddaana oo ka soo jeeda waddanka Denmark waxaanay u dhashay caruur dhawaan iyada iyo sayigeeda cad ee calmatay waxay tageen Burco Hargeysa Boorame si meeqam sara ayaa loogu soo dhaweeyay cid hadal haysa weligeed lama maqal tanina waa gabar kaloo Soomaaliyeed waxaana inoo keentay nin kaloo ajnabiya way wada nool yihiin way wada dhaqmayaan caruur ayaanay isu dhaleen cid hadal haysa ama ka doodaysa weligeed maqli maysid tanina waa gabar kaloo Soomaaliyeed waxa ay guursatay nin ajnabiya
iyadoo arooskeedii la dhigayo oo laga tumayo oo arooska ay joogaan xidid iyo xigaalba ayaa caruuskii caddaa ee ajnabiga ahaa gabadhii intuu sare u qaaday samada ku qadhiidhay cid hadal haysa ama ku cusuriyadaynaysa arki maysid waxa aan soo sheegay oo dhan wax ka daran ayaa hablaheenu inoo keenay oo dhagaha aad faraha gelinayso kani waa idriis alba oo ah aktar ka mid ah aktarada ugu caansan dunida waxaanu ka soo jeedaa qaaradda afrika marar badan oo warbaahinta caalamku ay weydiiyeen diinta ninkani uu aaminsan yahay waxa uu ku jawaabay anigu diinba ma aaminsani sida xoolaha ayuu waxna cunaa waxna cabbaa oo uu seexdaa soona toosaana waxaana inoo keentay inanteenni qaaliga ahayd waa sabriina arooskoodu waxa uu ka dhacay waddanka ninkani uu ka soo jeedo weliba arooskii idriis iyo sabriina waxaa ka qayb galay faamiliga gabadhu ay ka soo jeedo sida hooyadeed aabbaheed hadda ninka gabadhooda guursaday waa nin bilaa diina waanu ka sii xag jiraa ninka kiristanka waayo kiristanka meelaha qaar baaba wax lagu banneeyey inaad wax la cunto inaad la seexato iyo haddii shuruudaha qaar aad la timaado inaad guursan kartaba laakiinse qof bilaa diina inaad kaba ag dhowaato laguma bannaynba kama gayoonayo hablaheenna hilbahoodu ay haadu cuntay ee adduunyadoo dhan wadhan haddaba waxaa iga su'aalaa bulshada soomaaliyeedee haddii soomaalidu ay hablahooda u oggol yihiin rag bilaa diin ah maxay ugu diidayaan gobtan gabooye ee dhaqan iyo diin iyo afba aynu wadaagno waa su'aal muhiime aan ku soo noqdo mawduucayga maanta fanaanadda foosiyo ifka iyo saygeeda ay adduunkaba kala soo dhex baxday ragga dhiggeeda ah maaha lamaanihii ugu horreeyey ee dhanka fanki iyo suugaanta ku abtirsada ee isguursada laakiinse waxaa hadda ka hor isguursaday fanaanka caanka ee lagu magacaabo axmed cali cigaal iyo maryal mursal inkastoo labada fanaan ay noqdeen lamaano wada yagleelay guri iyo aqal oo weliba isu dhalay laba wiil waa kunciil iyo kundile haddana xidhiirhkoodii iyo gargacalkii ay wadaageen waxaa duufaanna ku noqday hees lagu xaday oo abwaan ka mid ah ama ka soo jeedaba beesha dhexe somalilan uu ku xaday waana xurguf ka kacday dhanka khadrad daahir marka la eega oo beriga xilfaaltan yari jiraye heestaas oo ahayd heesta iminka idiin baxaysa baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay udhariiba caashaaqu batalaale baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay inkastoo uu ahaa jacaylkii ka dhaxeeyey maryam mursal iyo axmed cali cigaal jacayl qoto dheer oo midho dhalay haddana waxaa gurigoodii iyo aqalkoodii galaafatay heestan baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay dhibaatada iyo tacaddiga lagu hayo beelaha gabooyo waa gebta gabeeye waa mid soo jireen ah oo weli abtinow lagu hayo waxaanaad mooddaa soomaaliba soomaaliga uu ka dambeeyo inay iskula sii dardaarmayaan dhibaatada xadgudubka ka dhanka ah beelaha gabooye halka dunida kale caalamkuna ay soo gebagabeeyeen amaba ay soo afjareenba wixii cusurinimada loo yaqaanayba xaqiiqadu waxay tahay soomaalidu umay kala hadhin gobta gabooye ama hargeysa ha joogaan ama muqdisho ha joogaan ama jigjiga ha joogaan ama jabuuti ha joogaane waa mid laga siman yahay cusurinimada baahsana lagu hayo bulshada qaybaheeda kala gedisan markaad waraysato mid waliba waxa uu ka odhanaya waa wax xun in gabooyaha la cusuriyadeeyo waana dad walaalaheena haddana markaad tidhaahda inantaada sii afka ayaa juuq qabay ayuu qaadaya
shiikha caalinka ee axaadiista iyo diinta ka warramaya markuu inantiisa masaajidka keeno ee uu yidhaahdo inan heerina oo wanaagsan oo laxaadkeedu dhammaystiran yihiin baan hayaa duunyo inigama rabo soomaalida masaajidka ku jirtaay nin wanaagsan iska soo dhex saaro inanta guursadaa shuruudda keliya ku xidhaya waxay tahay inuu diinta islaamka haysto keliya wax kale ugama baahnin haddii nin gabooye ah oo masaajidka fadhiya uu gacanta sare u taago yidhaahdo anaa guursanaya shiikhaa isaga ah waxa uu ku jawaabayaa war masaajidka ciyaarta ha laga daayo xaalkuma sahlana waxaan filayaa waxba yaynaan isku tuurtuurine cusurinimadu waa mid aynu ka siman nahay soomaali idibkeed isku soo wada duuduub fanaanadan codka toolmoon leh ee lagu magacaabo foosiyo ifka oo soomaali idilkeed indhaha saa ugala dhex martay ayaa kala soo dhex baxday wiilkan gabooye ee shacniga iyo milgahaad yaabayso iyadoo weliba hiil iyo hooba la barbar taagan oo leh dhagahaygu ma maqlaan xumaan ku aadan xaajigayga aan calmadaye hay wadina iga joog bay leedahay iminkana waxay soo saartay hees hordhaca oo weliba muuqaalkii ofishialkaaska ay soo wado oo dhowaan ina soo gaadhi doontaa gebagabadii waxaan inigaga tegayaa hadal dareen iyo naxdin xambaarsan oo gilgilaya qof kastoo damiirkiisu nool yahay oo muslima oo iimaankii diinta dhex dabaalanaya waa hadal dhowaan ay yidhaahdeen xidigaha ka soo jeeda gobta gabooye oo ahaa gabooye haddaanu nahay gefkaad noo geysataan gaaladuba nooma geysatee war ka kaco ha loo heliyo ayaan leeyahay gabooya haddaanu nahay gefkaada noo geysatee gabooya haddaanu nahay gefkaada noo geysatee gaaladu kuma dhiirati